بسم الله الرحمن الرحيم لما دلين Soomaaliyeed ku soo dhawaada macadka Soma muuqaalkan waxaan doonayaa in idin la wadaago shirkadda Fortinet oo update ku sameysay imtixaanka NSE4 information ku saabsan update-kaas ayaan doonayaa inaan idin la wadaago muuqaalkan ugu horeen marka hore waa maxay NSE4 NSE4 ama course-ka NSE4 ama imtixaanka NSE4 waa course uu ardaygu ku baranayo skills-ka iyo xirfadda la xiriira sida loola tacaamulo qalabka firewall-ka lagu magacaabo FortiGate firewall marba haddaan niri qalab firewall macnaheedu waxay tahay course-kaasi wuxuu xiriir la leeyahay security-ga qalabka firewall-ka oo course-ka lagu barto waxa lagu magacaabaa FortiGate firewall qalabkaasna waxaa soo saara shirkadda loo yaqaano Fortinet shirkaddani waxay ku jirtaa shirkadaha ugu sareeya ee soo saara qalabka firewall-ka haddaan u soo laabto marka imtixaanka NSE4 ereyga NSE4 wuxuu u taagan yahay network security expert ayuu u taagan yahay 4kuna waa level imtixaankani wuxuu ku base gareysan yahay operating systemka firewallka oo ah 7.2 inaga course-ka NSE4 intaynu ku soo guda jirnay waxaan adeegsaday labiska projects ku saabsan waxyaabaha ama skills-ka course-ka ku saabsan project-gaasna waxaan adeegsanaynay qalab real ah qalabka real-ka ah aynu adeegsanayno course-ka NSE4 markaynu isticmaalinay labskana dhisaynay waxaan ku base gareeyay latest version-ka oo ah 7.4.3 darsi kamida duruusta waxaan ku baranay sida loo upgrade gareeyo ama upgrade sida loogu sameeyo firewall-ka waxaana ka dhignay inuu qalabka ku shaqeeyo latest version-ka marka aan darsiga duubay oo available-ka ahaa website-ka Fortinet-ka ku diyaarsanaa macnaheedu waxay tahay course-ka skills-ka ku saabsan dhanka labiska wuxuu inoogu base gareysan yahay latest version-ka waa maxay marka isbedelka ku imaaday imtixaanka NSE4 shirkadda Fortinet imtixaanka NSE4 waxay ku bedelaysaa hadda maysan bedelin laakiin waxay ku bedeli doontaa mustaqbalka imtixaan kale lagu magacaabo FortiGate 7.4 administrator sida hadda arkaysid imtixaanka cusub wuxuu ku base gareysan yahay operating systemka 7.4 magaca course-ku wuu isbedelayaa wuxuu noqonayaa FortiGate 7.4 administrator magaca course-ka wuxuu ahaa network security expert ereygan marka FCB course-ka chapter-kiisa koowaad ayaan kugu soo sharxay shahaadooyinka kala duwan FCB waxaan soo niri waa Fortinet certified professional hadda waxaan doonayaa marka muuqaalka inaan comparison ku wada sameeyno content-iga imtixaanka FCB iyo content-iga imtixaanka NSE4 sida u aragno maxaa isbedelay update-ka hadda la sameeyay imisa ama intee ayuu saameynayaa content-igi imtixaankii hore intaan u guda galay marka comparison-ka marka hore haddadan la joogo imtixaanka FortiGate 7.4 administrator waa ardayga doonayo inuu imtixaankani galo hadda uu gali karaa waa ay soo dhigeen waan wada arki doonaa marka website-ka still laakiin imtixaanka NSE4 wili waa uu jiraa aan marka hore website-ka wada galno sidaan usii aragno information haddaan kuu sheegay wax kaloo dheeri ku saabsan linkigan waxaan idin dhigi doonaa description-ka muuqaalka haddaan halkan imaano waxaad arkaysaa imtixaanka inaga hadda course-ka inuu kusoo jirnay oo ahaa NSE4 version-ka ku salaysan yahay waa 7.2 laakiin imtixaankani waxaad soo dhigeen website-ka inuu available noqon doono ilaa laga gaaro July 31 sanadka hadda aynu ku jirno waxaa marka bedeli doona imtixaanka cusub oo ah FortiGate 7.4 administrator kanadan kili ku siiyo marka imtixaankan haddadan waad gali kartaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan isla babar dhigno content-iga labada imtixaan maxaa cusub maxaase la bedelay sidaan wada aragno haddaan kili ku siiyo exam description-ka imtixaanka cusub ee 7.4-ka haddaan tago sidoo kale NSE4 imtixaanka cusub imtixaankii horena haddaan kili ku siiyo exam description-kiisa waxaan wada sameynaynaa marka hadda comparison ku saabsan content-iga labada imtixaan haddaan ku hormaro marka 7.2-ga waa midka hadda inuu dhiganay course-ka NSE4-ka marka hore imtixaankani dhanka su'aalaha waa 60 su'aalood oo multiple choice ah time-ka waqtiga imtixaankana waa 105 daqiiqo waa 105 daqiiqo inkastoo ay ku sii xiran tahay luqadaadana inkastoo ay ku sii xiran tahay haddii English tahay haddii kale waxaan u imaanayaa marka
sidoo kale 7.4ka imtixaanka 7.4ka cusub waxa arkaysaa waqtigiis inuu yahay 90 daqiiqo kan muxuu ahaa 105 su'aalahana waxaad arkaysaa waa 50 waa mid imtixaanka cusub imtixaankii horena waxa filanaysaa 60 su'aalood meesha waxa arkaysaa marka horeba imtixaanka cusub inuu ka su'aalo yar yahay imtixaankii hore taa waxa ku ogaanaysaa marka contentiga ama mawaadiicda imtixaanka cusub in ay yihiin mawaadiic ka yar imtixaankii hore haddaan sii tagno sectionska imtixaanka haddaan isla barbar dhigno waxaan arkaynaa marka hore sectionka koowaad oo ah deployment and system configuration halkan wuxuu ka hadlayaa sida firewallka loogu sameeyo initial configuration sida loo sameeyo HA cluster mawduucan baa hadda doonaya oo muhiimka ah oo inaga course-ka inoogu jira oo ah VDOM waa virtual domain waa mawduuc muhiim ah waa mawduuc aad iyo aad muhiim ah sida aniga aan mawduucan practice-kiisa aan kaga dhigo real waxaan u ijaartay meel qalabka realka aan ku haysto iyo sidoo kale firewall cusubna waan soo gaday hore waxaan practice-ka ugu soo sameeynay hal firewall hadda waxaan kusoo biiriyay firewall kale aan kusoo biiriyay sida marka mawduuc HA-ga iyo VDOM-ka sida aad ugu sii fahmo laakiin markaan inimaano manhajka cusub ama imtixaanka cusub ee 7.4ka sectionkiisa koowaad ee deployment waxa arkaysaa in laga saaray VDOM-ki waa laga saaray VDOM hadda halkan kuma jiro macnaheedu waxay tahay imtixaanka cusub laguma imtixaanayo conceptiga VDOM laakiin inaga course ku sharaxaynaa VDOM practice waan ka sameeynaa sidoo kale waxa arkaysaa meeshan dhanka haddaan imaado firewall and authentication hada section kan la barbar dhigto sectionka ku aadan imtixaanka cusub waxaad arkaysaa inuusan jirin wax isbedel ah inaga course waxaan practice ku soo sameeynay practice badan gaar ahaan firewall policy-ga iyo arinta ku saabsan user authentication-ka gaar ahaan user admin-ka sida loogu xiro firewall-ka active directory-ga FSSO-ga practice badan baynu ku soo sameeynay arintan hadda wili image isbedelin waa sidii waa arin skill muhiim asaasan oo base ah version kasta oo firewall-ku support garanaya ma waxaad arkaysaa marka firewall-ka ama version-ka cusub ee imtixaanka waa isku midkii wax difference uma dhaxeeyo waa inta inuu practice ku soo wada sameeynay waxa imaanayna marka dhanka content inspection mawaadiicda hadda course-ka anno practice-ka badan ka sameeyno waxa kamid ah mawduuca web filter-ka iyo sida website-yada loo filter gareeyo sida application-ka loogu sameeyo control mawduuca antivirus-ka APS-ka content inspection-ka imtixaankii oo course-ka ku base gareysana iyo midka cusubba wax difference hadda uma dhaxeeyo almost waa same waxa difference u dhaxeeyo ma jiraan haddaan imaan laakiin dhanka routing-ka kaliya wuxuu ka hadlayay imtixaanka hore sida static route loo sameeyo sida policy based route loo sameeyo laakiin inaga course waxaan practice badan ku sameeynay BGP OSPF ayadoo lagu practice garanayo firewall-ka iyo arrimo kale ku saabsan routing-ka iyo SD-WAN laakiin imtixaanka cusub 7.4ka ah routing-ka wuxuu ku soo kordhiyay SD-WAN ayuu ku soo kordhiyay SD-WAN inaga already practice ku inoogu jirtay sidoo kale practice waxa inoogu jira BGP-ga sida lagu practice gareeyo oo protocol-ka BGP-ga OSPF-ka FortiGate firewall-ka manhajka cusubna ama course-ka cusub ama imtixaanka cusub ee 7.4ka kuma jiro sidoo kale BGP OSPF ina kuma jiro laakiin inaga course-ka practice badan baynu ka sameeynay waan ku qaadanayna haddaan nimaano dhanka VPN-ka sida ognahay wuxuu inuu ahaa inaga SSL inspection IPsec remote access VPN waxa kale jiray zero trust network access mawduucan zero trust network access imtixaanka cusub sidoo kale waa laga saaray waa inta marka content-iga course-ka kaliya hadda waxaan dhihi karnaa marka dan soo koobo imtixaanka cusub magaca uu isbedelay numberka su'aalaha imtixaanka su'aalihiisa waa isbedeleen sidoo kale waxaa laga reebay mawduuc muhiim ah oo VDOM ah sidoo kale waxaa lagu soo biiriyay mawduuc muhiim ah oo lagu magacaabo SD-WAN inta marka muuqaalkani gabagabeeyay waxaan rabaa kaliya inaan idin la wadaago hal taladu waxay tahay information technology-ga ardayga soo dhiganayo jaamacadda marna ha ku kaaftoomin jaamacad waa muhiim shahaado jaamacad waa muhiim laakiin marna ha ku kaaftoomin waxyaaba
certificationska IT-ga sida Cisco, Microsoft iyo shirkadaha cloud-ka iyo shirkadaha security certificationskooda bixiyo waxyaabo ay ku fiican waxa kamid ah waa update macnaheedu waxay tahay skill-ka adiga aad baranaysid waa skill marka dunida laga isticmaalayo oo update ah marka waxaan kaloo rabaa inaan tala kale ka bixiyo arrimaha ku saabsan certificationska IT-ga markasta isku day inaad taabacdid waxyaabaha ku cusub kaba soo qaad certificate muayyan ah ayaa qaadatay sanad kamid sanada dhowr sano kadib ayaduna ku ekaanin in wixii aad baratay update ku yimaadeen wixii aad baratay inuu isbedel inay ku dhaceen wixii isbedelka cusub wixii cusub oo markaas lagu soo kordhiyay baro hata arkayno markastoo imtixaan la update gareeyana ma aha in content-igi oo dhan had iyo ku wax cusub laga dhigay ma aha kaliya un update-ku wuxuu ka dhacayaa mawaadiic muayyan ah in lagu biiriyo ayaa laga yaabaa ama cagsiga in la sameeyo mawaadiic ku jirtay in laga saaro waa inta un kaliya marka haddii imtixaan la update gareeyana ma aha imtixaankii hore wixii aad soo baratay inaysan faa'iido lahayn oo hadda iyo ku wax kale baranay sida cusub ma aha waa un update waxa weeyaan wixii hore u soo baratay ayaa wax lagu biiriyay mowduuc ama laba mowduuc sad aragnayba ama mowduuc iyo laba mowduuc ayaa laga saaray markaas waxaad ka dhigtaa update oo la soco insha Allah taala hadda aniga course-kan gaar ahaan NSE4ka macadka Sooma luqada Soomaaliga waxay ii marayaan sharaxaada chapterka 11aad dhamaad ayaan joognaa ardaydan waxay soo marayaan chapterka 8aad course-ka practice labskiisa already wuxuu ku saleysan yahay version-kii ugu dambeeyay latest version-ka sidoo kale imtixaanka labada imtixaan marka aan eegaynay kuma jiro wax ka hadlayo cloud-ka sidee qalabkan firewall-ka FortiGate firewall-ka sidee loogu implement gareeyaa cloud-ka kuma jiro laakiin inaga course-ka NSE4ka ama course-ka firewall-ka markaynu ku baranayno section-ka dambe oo dhan wuxuu ka hadlayaa cloud-ka maaha inaan ku bariyo cloud-kii si gaar ah waxa weeyaan cloud-kii oo lagu implement gareynayo FortiGate firewall-ka Amazon Web Services aynu practice badanna ku sameeynayna oo gudaheeda aynu ku sameeynayno firewall-kan waana muhiim shirkadaha qaar oo kale waxa suuragal ah inay ku yiraahdaan firewall ba inuu yeelo bangiga gudihiisa waxaan doonaynaa sidoo kale resources-ka aynu ku haysano gudaha cloud-ka inaynu protection ku sameeyno waxaan u baahanahay marka gudaha cloud-ka inaan ku implement gareyno FortiGate firewall marka labada imtixaanba kama hadlayaan FortiGate firewall-ka sida loogu implement gareeyo cloud-ka laakiin inaga insha Allah taala course-ka section-kiisa dambe aad ku baran doontaan laakiin sida aynu soo aragnay chapter-ka koowaad markaynu ka soo hadlaynay certificateska waxa jira certificate gaar ah oo ku saabsan sidee FortiGate firewall-ka cloud-ka loogu implement gareeyo inta tamka course gaar ah u dhiga lahayd ama ku dhiga lahayd section-ka ugu dambeeya course-kan ayaan kugu bari doonaa cloud-ka sida loogu implement gareeyo waxaan ula jeedaa FortiGate firewall-ka sida implementation-kiisa loo sameeyo gudaha cloud-ka waxaan isleeyahay marka inaan intaad ila garateen update-kan ku yimid linkigan waxaan idin dhigi doonaa description-ka waxaan ku kulmi doonaa muuqaal soo socda haddii